أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو أهمام مليون وهالهايسكيقو يهي هنو هذا الماها همبريرزي أرق ماها هنو هذا الماها همبريرزي أرق ماها بوم أو هذا بوم ببرتين بالها لسكرفايا arrimahaas waxaan u oran jiray hunnu hadal maaha waa wax la qariyo oo la qariyo oo qurun ah inaysan hadal ahayn. waxa adduunka ilaahay ugu qaalisan waa waxa la sheego iyo waxa horumarku yahay iyo waxa adigu aad tahay oo runta ah inaad banaanka u soo dhigatid. horta waxaan dhex fadhiyaa waa gurigeyga deydkiisii. saacadu waa 10:05 hadda. saacadan waxaan qoraxda u fariistay waxaan gogol gareeyay ama adiguba aad gogol gareyn kartaa qoraxda waqtiga vitamin D ga laga helo. anagu waxaynu u qabnaa qoraxda in mar walba vitamin D laga helo. qoraxda waqti waxa jira vitamin D laga helaa jira. waqtiga vitamin D ga laga helo waa waqtiga qoraxda. waqtiga qoraxda vitamin D ga laga helo waa 10 subaxnimo ilaa iyo 11 subaxnimo. 4 saac oo subaxnimo ilaa 5 saac oo subaxnimo. halka saac 30 daqiiqo oo kamid ah hadaad qoraxda fariisatid vitamin D gaagu wuxuu noqonayaa hay. ana waxaan qaataa vitamin D, waxaan qaataa calcium, waxaan qaataa magnesium, waxaan qaataa zinc, waxaan qaataa fish oil, waxaan qaataa B complex. haddana waxaan cunaa maringe. geedka maringaha la yiraahdo oo ka asagoo ii baxay halkaas ku yaala waa kaas iga dambeeya maringaha 2 geed baa ii baxda oo maringa ah. subax walba laan yar baa la iiga soo gooyaa, waa la ii dhaqaa, toon baa la iigu daraa, waa la ii shiidaa. marka la ii shiido isaga iyo toontii waa la miiraa. marka la miiro baa biyo yar oo kulul la iigu daraa. okay, biyahaas kulul oo maringaha iyo toonta leh ayaan subax walba hadda cunaa. maxaan ka dareema? waxaan dareemay active inaan noqdo. maantay waxaan socday oo gurigeyga dhexdiisa ku socday maanta waxaan gurigeyga dhexdiisa ku socday maantay waxaan socday oo gurigeyga dhexdiisa ku socday 3 kilomitir. waxaan 3,728 steps baan socday. kilomitirkana waa 2.8 kilomitir. 2.8 kilomitir baan socday gurigeyga dhexdiisa aan ku socda. markaan galabkii inta ka dhimana waa dhamaynaya. maanta 3 kilomitir waa buuxinayaa galabta subaxnimadan. waxaan kale oo samaynayaa inaan sameeyo galabkiina inaan 3 kilomitir maalintii haddaan 6 kilomitir socdo every day oo aan habit ka dhigto. markaan dhowr bari joogana aan ka dhigo inaan sameeyo 4 subaxii iyo 4 galabkii aan sameeyo. marka kalena aan ka dhigto 5 subaxii iyo 5 galabkii. 10 kilomitir maalintii haddaan soobiyo waxaan aaminsanahay inaan weight badan iga dhici karo. inta aan maringaha isticmaalay, inta aan channelkayga daawatay, waxaa idinka codsanayaa inta kale u share gareeya, subscribe-ka iyo thumb up-ka iyo share-kana ii sameeya. waxaan rabaa inaan habit ka dhigto. habitka waxaa la dhahaa waxa mar walba aad isticmaashid. biyahaas cad waa inaad aad u isticmaashaan. biyaha cad waa caafimaad. caafimaadkaaga wuxuu ku jiraa biyaha cad. bismillah. okay, waxaan rabaa inaad barataan naftaada inaad jeclaatid. waqtiga waxa inaga lumiyay social media, waqtiga waxa inaga lumiyay TikTok, waqtiga waxa inaga lumiyay Facebook, YouTube kan oo kale wax big deal ma ahan. 8 daqiiqan soo duubaa ama 10 daqiiqan soo duubaa ama 11 daqiiqo. waa markaad maalintii
intaas ka soo duubtid wax weyn ma ahan laakiin markaas 5 saac 6 saac 7 saac 8 saac TikTok dhex fadhidid waqtigaaga oo dhan wuxuu ku dhumayaa social media waxyaalaha lagu waashana waxa kamid ah social media aad baa loogu waashaa marka waxa idin kula talinaa aniga tala ahaantayda aqligayga anigu cidna ma bedeli karo laakiin naftayda waxaan ku talagalaa inaan naftayda waxa wanaagsan aan baro waxa xunna aan ka qariyo taasa waxay keenaysaa in aad baratid qofka aad tahay in aad caafimaadkaaga ka shaqaysid fitamiinkaagu ma hooseeyaa dhiigaagu ma yar yahay caafimaadkaagu waase noloshaadu waase xagee seexataa xagee ku nooshahay marka channelkayga haddaad daawataan subscribe-ka iyo thumbka iyo share-ka iyo saara please aniga wax kasta oo la dhaho dantaydaan raacda dantaydu waa lama huraan weeye dantaadu waa lama huraan waxa ugu wanaagsan oo la qabto waa lifekaaga inaad ka shaqaysatid inaad cunto healthy cuntid mardhow waxaan rabaa inaan digirta bilaabo inaan waxaan rabaa samaysto full inaan samaysto subaxii oo aan green ku darsado fuulkii oo green leh oo mataqaanaa mooska inaan cuno maringahaygaas inaan cabo inaan mataqaanaayeeto maringaha markuu ii weynaado asagaaba salar ka dhiganaya lindhanaan baad ku darsanaysaa salar ahaan baad u cunaysaa qumbahaasa insha allah ii soo bixi doona cambaa ii soo go'i doona moos baa halkan iigu abuuran mooskaasaa ii soo bixi doona insha allah waxa ii abuuran afakaada ii abuuran insha allah waa ii soo bixi doontaa waxa ii abuuran geedkan la yiraahdo magaciisa gawaafe baa ii abuuran insha allah uu ii weynaan doonaa okay babay baa meel ku abuuran yaanyadayda maalin walba gurigeyga waxaan ka cuno yaanyada aan ku cuno anigaa beerta insha allah qaraa hadda lagu daadaadiyay qarihii baa soo baxay insha allah waa ka soo bixi doonaa gurigeyga qaruhu wax kasta waa samayn karaa anigu waxaan sameeyana idinkuna waa samayn kartaan waanoo maamuliyuna oo kule subaxii 4 saac ilaa 5 saac 5 saac halkaa saac hadaarad 30 daqiiqo oo kamid ah aad qoraxda fariiso okay meesha quruxda badan baan fariistaa subaxii oo dhan iyadoon qoraxda ay mataqaanaayo iska yar tahay necessary maaha inaad qorax fariisatid wakaas gurigeyga alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaa iyo greenkaas ilaa iyo adduunkaas waxa aan u samaystay waxa weeye in aan wax walba oo maskaxdayda ku jira oo negative ina isaga dhaqo okay noloshu nin ma ahan noloshu lacag ma ahan noloshu waxa weeyaan farxad weeyaan adigoo lacag haysan hadaa tirahdid inta yar aan haysto baan rabaa inaan farxo oo ku farxi kartaa laakiin hadaa tirahdid oo lacag baan raadinaa lacagta ilaahay baa bixiya hadaa tirahdid awlaad baan raadinaya farxad ma helaayo awlaadda ilaahay baa bixiya hadaa tirahdid shaqaan rabaa shaqada ilaahay baa bixiya hadaa tirahdid guur baan rabaa guurka ilaahay baa bixiya adiga laakiin waxa laga rabaa in aad waxa aad haysatid aad ku farxadid baa laga rabaa aniga maalintan dhulkan dhisayay oo dhulkan waxaynayay waxaan rabay meel qurux badan inaan dego waxaas oo qurux badan baan sameeyay waxaas oo qurux badan ayaan sameeyay sidaas darteed cunto healthy cuno meel qurux badan fariisto vitamin D-gana maalin walba 1 hour kaas aan fariisto ilaa 10 ilaa 11 halka saac inaan maalin walba 30 daqiiqo ma fariisanayo hadda nin baa maanta guriga jooga ninkaas wax dhisaya haddaan rabo markii aan arko inuu dhisay oo dhameeyo waxaan qaadanayaa waxyaalo fara badan baan rabaa gurigan inaan ka dhigo wax walba in laga helo dadka aniga inta igu xiran oo jecel oo igu weegaaran oo noloshayda jecel oo caqliga u saaxiibka ah ma ahan qof aniga jecel oo asagoo isjeclayn qofka aniga jecel oo asagoo isjecel baan adduunka ugu jeclaha laakiin qof aniga jecel oo asagoo isjeclayn aniga waxba iiguma yaalo waana maamuliyuna oo kula channelkayga hadda daawataan subscribe-ka iyo thumbka iyo share-ka iyo saara waxa soo nimca baan beertay maringaha geedka halkaas kale ku yaala xabadiisa kale dhinacaas ay ku taala xabada maringaha iyo kale akaas ka muuqata midna halkaan ku yaala ma sha Allah waa kana halkaan yaala marka laba geedo cambaaba ii beeran laba maringaaba ii beeran avocado ii beeran waxa ii beeran cambe laba xaba avocado waxa ii beeran gawaafe waxa ii beeran babay waxa ii beeran moos mooska geedkiisa biyo fara badan buu rabaa laakiin waa kaas gaariga geeskiisa yeelan waxa ii beeran
waxaan dhahayo kale ii beeran waana arkaynin ha marka geedaha la cuno baa aniga rabaa geedaha kale oo baxaya way badan yihiin marka waxaan rabaa meel mooskayga aan ka soo goosto liin baa ii beeran 4 geedoo liina 2 macaan iyo 2 liin dhanaana ii beeran waxaan ku leeyahay noloshaas anoo maamuliyeen oo 60 sano aan samaystay adigoo iga dhalin yar oo iga qurux badan oo lacag badan waa samaysan kartaa magaalo waa baanan baadiyaan rabaa meel waxaan rabaa maskaxdu ii degto waxaan cunana waa ka helaa wax kalena waa waxaystaa neef xoolaha intaan soo gato hadda nin baa ii jooga ninkaas waxaan rabaa meel halkaas inaan dhaho bahasha iiga samee bahal aan haysto on rabo inaan hilibkayga marna ku karsado marna ku foornaysto waana maamuliyuna oo kula channelkayga hadaa daawatid subscribe-ka iyo thumbka iyo share-ka ii saar darintaas waxa la oran jiray makeeko halkaas aan fadhiyaa koobkayga biyaha baa ii hor yaala xirka cabaar ii jira salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh